لله وإنا إليه راجعون. ولا الذي لغو الله إلى هلكا أمر كسوق يا وفري دجالك قال وإلى يدخل ذاتي للدفاع ونيجي للدفاع وعاركي للدفاع ومقالدي للدفاع وإلى يدخل رؤيا وحلا يدخل صعدا وقريه نية ما تجي إلا إذا كل حي ماذا كهرتاجا أو دفاع ذاتك اللي يدلك فأنت لك الله هذا برضو هذا حب كذا أرياع كذا ورياع أرولا وياع يا ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya og labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya og golaha ammaanka ee qaramada midoobay og xogayaha guud ee qaramada midoobay og gudoomiyaha midowga Afrika AU og xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta og dawladda xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD og safaaradda shisheeye ee ku sugan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bayaanka Laascaanood waxa weeye taariikhdu waa 6 bishii February 2023 sida bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamku la socdeen waxa 15 sanadood ee la soo dhaafay ka jiray deegaanada SSC Khaatumo dhibaatooyin badan oo ka dhashay joogitaanka sharci darrada ah ee maamulka Soomaaliland arrintaas oo keentay kacdoonka shacabka ee ku aanbaxay kacdoonka buluugga ah ee ay dadku ku diidan yihiin in lagu qasbo gooni goosad aysan doonayn xasuuq isir sifayn ah shirqoolo lagu beegsanayo haldoorka deegaanka la dagaalanka iyo curyaaminta dhaqaalaha deegaanka ilaa la gaarsiiyey heer hay'adaha caalamiga ah laga hor joogsado deegaanada SSC Khaatumo intaas waxaa dheer xarig jirdilka iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo bulshada SSC Khaatumo ee aan ogolayn kala goynta dalka sababta darteed waxaa magaalada Laascaanood 28 bishii koowaad 2023 oo soconaya ilaa maanta oo bishu 6 tahay shirweyne ay aayahooda kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada uqaasha culimada aqoonyahanka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wada hadal dheer iyo wada tashi iyo falanqayn qoto dheer ka bacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan number 1 waxaan cadaynaynaa in aanan sinaba uga mid ahayn Somaliland wax heshiis ahna aanan kula gelin kala goynta dalka Soomaaliya 2 deegaanada SSC Khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dadweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed number 3 shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu cadaynayaa in deegaanada SSC Khaatumo lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya number 4 tan iyo inta la dhameystirayo aayaka tashiga deegaanada SSC Khaatumo si waafaqsan qodobka 49aad ee dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada SSC Khaatumo si toos ah u tagto dawladda federaalka si waafaqsan qodobka 48aad farqadiisa labaad ee dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya number 5 waxaan cadaynaynaa in aanan ahayn argagixiso deegaanka iyagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii deegaanka lahaa oo ay Somaliland si gardarro ah ugu soo duushay isla markaana waxaanu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada deegaankayaga sidoo kale waxaanu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamulada iyo deegaanada deriska ah number 6
dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Somaliland ka talinayay deegaanada SSC Khaatumo waxaan u aqoonsanahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas'uul ka ah maamulka Somaliland isla markaana waxaan cadeynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabeen imaatinka Somaliland baaq shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Somaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatumo ee ku salaadeena ku sugan deegaanada SSC Khaatumo si shuruud la'aan ah waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada oqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer Sheekh Isaxaaq in ay ka qayb qaataan sida ay uga bixi lahaayeen ciidamada Somaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Somaliland ka geysatay 15 sanadood ee la soo dhaafay deegaanada SSC Khaatumo shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii khuseeya danaha SSC Khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada SSC Khaatumo gunaanad shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatumo waxaanu soo dhaweynaynaa wada hadal kasta oo nabadeed haddii Somaliland ciidamadeeda si buuxda ugala baxdo deegaanada SSC Khaatumo qodobada ka soo baxay shirka ka tashiga deegaanada SSC Khaatumo waa qodobo la isku raacay laguna midaysan yahay waxa wax lagaga bedeli karaa oo kaliya kulan ay u dhan yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska oo ah isimada iyo uqaasha beelaha SSC Khaatumo waa dhamaad